kulankan oo ahaa mid ay uga soo horjeedaan heshiis dhexmaray ahlus sunna wal jamaa iyo madaxweynaha galmudug dhanka Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa waxa ka hadlay Cawka Xaaji Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha baarlamaanka dhanka Timakala Jeex magaca ahlus sunna wal jamaa sheeganaya inay hadda ay la shireen sida la socotaan ba galmudug maadaama khilaaf ku jiro khilaaf kamid ah garab kamid ah nimankaasi marka anagu shakhsiyadooda ma fargelinayno laakiin waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo shacabka reer galmudug iyo ahlus sunna wal jamaa oo walaalaheena oo aqeede iyo dhan walbaba aanu ka wada dhisanahay nimankaasi waxay soo kordhiyeen khilaafkii galmudug ayay kordhiyeen waxaana weeye khilaafku hadduu jiro wuxuu u baahan yahay islaax iyo wanaag iyo dhaxgal iyo dimis khilaafkii galmudug ka jiray ayay laba jibaareen sidaa darteed waxaan leenahay waxaan la xiriirnay madaxdii galmudug sida gudoomiyaha guddiga fulinta waxay noo sheegeen ahlus sunna wal jamaa in ay iyagu arrintaasi aysan lug lahayn annagu marka hadda nimankaasi saxaafadeedka la soo saaray garabka maamulka aan jirin sheegta annagu waxaan u aragnaa inay yihiin caqabad hor leh oo galmudug ku soo kordhay dhinaca kale Cali Baashe Maxamuud Cumar oo ka mid ah siyaasiyiinta galmudug si weyn uga soo horjeeda labada garab ee galmudug ayaa isna dhankiisa maanta shir jiraa'id oo uu kaga hadlayo heshiiskaasi iyo arrimo kaleba ku qabtay xarunta uu ka degan yahay galmudug muddo dheer waxaa ka jiray khilaafaad aad u xoog badan wuxuuna marayaa ilaa hadda 5 bilood bishii 6aad ayaa u dhalatay wax khilaafkaas ka soo xaasilay oo xalli ah oo la gaaray dadka iska soo horjeedana ay ka wada hadleen ilaa hadda ma jirto sidaas darteed galmudug oo la ciireysay markii hore dhibaatooyinkaas khilaafkaas iyo horumar la'aan iyo is-afgarad la'aan maanta waxaa ku soo ziyaaday waxyaabo aan isri waxay ku yihiin caqabad hor taagan horumarka galmudug iyo dhammaan waxyaabaha aan higsanayno oo mustaqbalka aan rabno inaan ku sii ballaarin galmudug ama aan gobolada dhexe laga dhaliyo maamul ballaaran oo dadka dhan wada sima maamulkaas horseed waxa uu noqon lahaa ahlus sunna wal jamaa waxaan filaynay in ay imaad doonaan rag ka tirsan ahlus sunna wal jamaa haddana waxaa jooga magaalada Gaalkacyo wafdi la sheegay inuu ka socdo ahlus sunna wal jamaa uu hogaaminayo gudoomiyaha ahlus sunna wal jamaa anigu ma ilaahdeen haddii aan wafdi heerkaas oo kale ah oo caalamiyan la aqoonsan yahay ama gobol ahaan la aqoonsan yahay ama Soomaali oo dhan laga aqoonsan yahay kuma dhaqmeen waxyaabaha qaarkood oo wafdigu ay ku dhaqmeen Cali Maxamed Cali Home Cable TV Gaalkacyo.